wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam cidnaha caayin la tasubbanna ahadan ahad ha caayin cidnaba ha caayin aflaga doonin arabkaaga ilaali caayida iska ilaali limaada لأن أفحمدا إيا عايدو وحي كترجميسا شخصيات حمو أفحمدا إيا عايدو وحي كترجميسا ألا كفوغانشو أفحمدا وحي كترجميسا أخلاق حمو نبي محمد وحى الله صدره صلوات ربي والسلام عليه إنه أخلاق ذا مديدة وناكسن دادك أولا ما يسترابره ودين الأخلاق sidaas daraadeed markuu dadka diinta barayo mabaadiida ugu horeysa uu hormariyo waxa kamida inuu dadka kala hadlo akhlaaqda sidqiga runta dhowrsoonaanta muxuu ahaay cadaaladda saas daraadeed nabigu wuxuu uga bilaabay cidnaha caayin aydu ma aha dhaqan muslima nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam labada ruuxi caytamay ee isku afceelinay ee aflaga doonayay laba shaytaan oo hadal aan qiimo lahayn qaybsanayay la mid yihiin beenna isku tuurtuuraya hadal baatil oo qiimo lahayn wadaagayay la mid yihiin laba shaytaan oo noocaas oo kale weeyaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam cidnaha caayin wuxuu nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam mu'minku mid afxun ma aha dabeecadiisu afxumo uma samaysna mid labaadna afxumana iskama raadiyo faaxishku waa dabeecada asalka afxuma asal uma mutafaxishkana waxa la yiraahdaa markuu la lahayn asal u lahayn laakiin iska doonayo iskamana doono asal uma leh ma afxuma saas daraadeed ba ummul mu'miniina Aisha radiyallahu ta'ala anhuma markay nimankii yahuudu nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam ay ku yiraahdeen assaamu alayk geeri korkaaga ha ahaato oo Aisha intay fahamtay ay ku tiri wa alaykumus saam wal la'na geeri iyo lacnadba korkiina idinka ha ahaato nabigu uu maqlay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Aisha afxumadu ma fiicna fuxshigi afxumadu ma fiicna maxay tiri geeri iyo lacnadi korkiina ha ahaato daabu ku yiri yaa waayide kuleeda waa yahuud oo nabiga aflagaaday sallallahu alayhi wasallam oo nabiga wax ka sheegay hadhiin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri rasuulka ilaahay Soomaada maqlin waxay kugu yiraahdeen nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam oo adigu Soomaada maqlin waxaan ugu jawaabay nabiga jawaabtiisu ma ahayd wa alaykum assaam madhin wa alaykum intaas ugu gaabsado sidaas daraadeed diintu waa diin afka iyo qalbiga iyo xubnaha intaba daahiriso hagaajiso way la tasubbanna ahadan ninka saxaabiga markuu nabigu inta u dardaarmay radiyallahu ta'ala anhu arda sidoo u qaatay u fiirso wuxuu leeyahay maalinka wixii ka dambeeyay nabigu dardaaranka isiiyay waligay buu yiri intii muddada ka dambeysay ruux macaayin buu ama xor ha ahaado ama adoon ha ahaado hatta neef geeriye neef ariya macaayin buu xoolaha hatta nool waligay macaayin buu maadaama nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam cidnaha caayin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaasay ahaan jireeno markii amar rabbi yimaada ama amar